Asalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta ku xidhan kanaalka Garaad Koriye. Isku soo laabasho wanaagsan oo wacan maanta iyo sheeko cusub. Sababta kaliya hateen u noqdo taqsiila ayaa ah saacadaha shaqada ee dabacsan awgeed, kaasoo si fiican ula socda jadwalkayga kuleejka. Qoyskayga kuma ay wada jirin hal sawir sabab la xiriirta dhaqaale la'aan. Hooyaday waxay ahayd qof balwad leh, weligeena lamaan kulmin aabahay. Ka shaqaynta tagsigan ayaa iga dhigtay qof isku filan, wax qorshe ma lahayn toddobaadkii ugu dambeeyay. Sidaa darteed waxaan go'aansaday hadda inaan sameeyo lacag badan. Waxaan bilaabay meelaha 10kii habeenimo, waxaanan go'aansaday inaan dhammeeyo 2 habeenimo. Inkastoo dadka intooda badan aan u qaadiyay guryaha u dhow jaamacadda, waxaan ogaa inaan heli doono rakaab badan 4 saacadood gudahood. Shay kastaba si fiican ayuu u socday rakaabyadii ugu horreeyay. Waxaan u qaaday ciyaal college saqraansan gurigooda. Markii ay ahayd 1:15 waxa ay soo dhacay ogeysiis qof codsanaya in la qaado. Waxaan ogaaday halka uu joogo. Waxa uu ahaa ciwaan bakhtiya nasiib ah, kana fog magaalada. Waxaan u soo dhaqaaqay xaggii uu joogay qofku. Waxa ay ahayd mid xiise gooni ah leh, sababtoo ah marka aad meel dheer qof ka soo qaado waxa badanaya lacagta. Sidaa darteed ayaan u aqbalay. Gaadhidii meesha waxay igu qaadatay meelaha 5 daqiiqo. Waxaan u maleynayaa inuu noqon doono rakaabka ugu dambeeya ee qaadi doona caawa. Wax sawir ah uma saarnayn profile-kiisa, laakiin magaciisu waxa uu ahaa Rudy. Waxa uu ekaa mid aan lahayn qiimeyn qoraal ah, macnaha akoonkiisu waa mid cusub ama waa mid weligiis la isticmaalin. Waxaan u leexday dhinaca bidix ee waddada halkii adreesku ahaa. Markii aan dhinacyada eegay, waxaan ka fikiray inuu qof baraankii igu sameeyay. Waddadu waxay ahayd mid cabsi badan. Dhammaan guryuhu waxay ahaayeen kuwo la dayacay ama aan si fiican loo dhisin. Guryaha daaqadahoodu sidoo kale way jajabnaayeen. Marna ismaan odhan qof ayaa halkan ku nool sababo la xiriira cabsida ka jirta. Si degdeg ah waxaan ogaaday inuu qof taagan yahay meel ii jirta. Waxa uu eegayay meel kale. Waxa uu ekaa qof aad u qariib ah. Waxa uu bilaabay inuu gacan haadiyo. Aniga imuu gacan haadinayn. Gaadhigaygu uma dhoweyn isaga. Waxa uu taagan yahay dhinaca kale ee waddada oo gacan haadinaya. Mana arko waxa uu gacan haadinayo. Waa yaab. Markii aan damcay inaan u soo dhawaado, waxaan arkay guri cusub kaasoonan weli arkin. Waxaan naftayda u sheegay inaan nimid meel khaldan. Guriga ka dambeeya ninkan rakaabka ah waxa uu ahaa mid aad u jaban. Waan u soo dhawaaday, waxaanan fursad u helay inaan diiradda saaro ninkan. Waxa uu gashnaa jaakad madow iyo surwaal cawlan. Weli wuu gacan haadinayay, laakiin iminka markuu arkay iftiinka gaadhiga wuu istaajiyay. Dib ayuuna u soo jeestay. Gaadhiga iftiinkiisa ayaa shaaca ka qaaday wejigiisa. Markaas waxay ahayd markii aan aad u naxay una cabsooday. Wejigiisu waxa uu ahaa mid cabsi leh. Waxa uu lahaa dhoolla caddayn gaadhay dheg ilaa dheg. Waxa uu ekaa sidii qof wejiga lagaga sameeyay qalliin. Dhoolla caddayn naxdin leh. Waxaan rabay inaan ka dhaqaaqo oo aan iska daayo qaaditaankiisa, laakiin si degdeg ah indhahaan isku dhufannay. Kadib gaadhigu oo weli taagan ayuu daaqadda furay, wuxuuna soo fadhiistay kursigii igu xigay. Kadib soo fadhiisigiisu waxay igu keentay gariir iyo naxdin. Kadib waxaan qaatay telefoonkayga waxaanan ka calaamadsaday meeshii loo qaadayay. Intaa kadib waxaan go'aansaday inaan la sheekaysto. Ma halkan ayaad ku nooshahay? Maya, kuma nooli halkan. Codkiisu waxa uu ahaa mid aad u xun, yaab leh. Ta kale waxa uu hadlayay isagoo dhoolla caddaynaya. Haa, waan arkaa. Waxa uu igu soo eegay wejigiisii aadka u xumaa, kaasoo aad iiga nixiyay. Waxaan rabay inaan weydiiyo waxa ku dhacay wejigiisa, laakiin waxaan aad uga cabsi qabay inuu igu xanaaqo. Aamusnaan ayaan gaadhiga ku waday. Intaa kadib waxa uu bilaabay inuu wax i weydiiyo, iguna weydiiyo codkiisii aadka u xumaa. Cunto ayaan sitaay ma cuni karaa? Caadi ahaanta waxaan odhan lahaa maya, laakiin mar labaad ma doonaya inaan ka cadhaysiiyo ninkan. Waa caadi, iska cun. Mahadsanid. Kadib cunto ayuu soo saartay. Intaa kadib wixii ku dubnaa ayuu ka saaray, wuxuuna bilaabay inuu cuno. Ma arki karin dhab ahaantii waxa uu cunayay, laakiin waxa uu sameynayay codad fara badan. Cuntadiisu waxay ahayd mid dareere ah. Markasta uu goosto waxaan maqlayay cod aad u weyn. Sidoo kale urta cuntadiisa ayaa qastay hawadii baabuurka dhexdiisa. Wax dhibaato ah miyay kuu keenaysaa haddii aan daaqadda dejiyo? Maya, iska deji.
kadib waqtigii aan ku jiray maqlidda codkan wax cunida ee aadka u cabsida badan. Ugu dambeyntii waxa uu dhameeyay cuntadii, wixii ku duubnaana daaqadda ayuu ka tuuray. Kadib aniga ayuu ii soo jeestay. Iminka wejigiisu wuu isbedelay, wuxuuna noqday mid aad u cabsi badan. Waxaan u malaynayaa waxa uu cunayay inuu kajab badan lahaa. Iminka kajabka casaankiisu waxa uu caseeyay ilkihiisii oo dhan, sidoo kale afkiisa iyo gacmihiisa waxaa wada marsanaa kajabkan cas. Ninkii ayaa yidhi, biyo ma haysaa? haa dabcan. Caagad ayaa taala kursigaaga hoostiisa. Aad ayaan u cabsaday markaan, laakiin waan is-caliyay oo is-dejiyay. gaaritaanka meesha waxaa nooga hadhay in loo socdo 15 daqiiqo. Ilaahay ayaan ka baryayay inuu degdeg u dhameeyo habeenkan oo aroortii gaadhno. Ninkii waxa uu qaatay caagadii wuxuuna cabbay biyihii. Si degdeg ah waxa uu weydiiyey su'aal wadnaha ay joojisay. maad iga cabsatay? maya, wax laga cabsado ma jiraan mudane, kaliya waxaan gudanayaa shaqadayda. sidaa ayaan ugu jawaabay anigoo muujinayn wax cabsi ah. ninkii waxa uu isku soo jeediyey muraayadii gaadhiga. wejigiisii ayuu eegay wuxuuna yidhi, markii aan yaraa waxaan lahaa dhoola caddayn fool xun. hooyaday way iga xanaaqi jirtay markasta oo aan khalkhaliyo sawirka uu qoysku iska qaadayo sababo la xidhiidha wejigayga. waxaan xasuustaa inay carruurta dugsiga igu odhan jireen waxaad tahay qof cabsiya. markaan noqday 16 sano jir, waxa aan ka soo tagay gurigayga si aan u doondoono qof iga dhoola caddaysiiya. miyaad heshay? maya, laakiin taasi igama horjoogsanaysa inaan dhoola caddeeyo, sababtoo ah ugu dambeyntii waan helno qof iga dhoola caddaysiiya, kaasoo weliga jiri doona. ma saaxiibkaagii aad u gacan haadinaysay markii aan ku soo qaadayaa? kaliya ma tihid darawal, laakiin sidoo kale wiil xariif ah. halkaa waxaanu imiday inaan tuso saaxiibkay sawirka qoyskayga, kaasoo ah kii ugu fiicnaa abid, kaasoo welibana aan dhoola caddaynayo. aad ayuu ugu faanay run ahaantii, aad ayaanad iigu fiicnayd aniga. ma doonaysaa inaad aragto sawirka sidoo kale? waan jeclaan lahaa inaan ku tuso. anigoo garan la waxaan idhaahdo, waxaan sii ahaaday qof aamusan. ninkii ayaa waxa uu ka soo saaray telefoonkiisii jeebkiisa jaakadda, wuxuuna i tusay sawirkii uu qoyskiisa la galay. weligay ma iloobi doono waxa aan arkay. waxa uu ahaa sawir selfie ah oo lagu qaaday guri dhexdiisa. gabadha weynina waxa ay dul taalay fadhiga dushiisa iyada oo dhimatay. afkeyguna aad ayuu u furnaa sidii qof si naxdin leh u dhintay. ninkan hoos ayuu iska dhigay si uu sawir la galo isagoo dhoola caddaynaya. waxaan ku faraxsanahay inay dhoola caddayntayda ahayd wixii ugu dambeeyay ee aragto ka hor intayna dhiman. saaxiibkay waxa uu qabtay shaqo wanaagsan, miyuuna qaban? iminka waxaan dhoola caddayn karaa wakhti kasta oon doono, waqtiyada cabsida oo dhan. qof kasta waxa uu igu wici doonaa ninkii dhoola caddaynta. maan hadli karayn, cabsi aad weyn ayaan dareemayay. aragtidii ayaa iga sii tegaysay. waan miyir doorsamay oon sooxay anigoo gaadhiga wada. 2 saacadood kadib ayaan kacay. waxaan arkay anigoo dhakhtarka yaala. nin gaadhi xamuul ah waday ayaa helay gaadhigayga, kaasoo galay geed ku yaalay waddada dhinacayga. nasiib wanaag wax dhaawac ah ima soo gaadhin, taasoo ka yaabisay booliskii sidoo kale dhakhaatiirtii. qof ma jirin helay wixii igu dhacay. ninkii ila socday. marka aan ka fikiro habeenka aad ayaan uga shakisanaa inay run ahayd iyo in kale. run miyaa habeenkaa inaan soo qaaday Rudy, ninkii dhoola caddaynta? haddii aad halka soo gaadhay muuqaalka subscribe saaro si ay muuqaalada cusub kuu soo gaadhaan. like-na saar si ay dhiirigelin noogu noqoto asxaabtaadana lasi wadaag. sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh. bye bye.